مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم به ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، waxaan ku jirnay siiradii nebiga sala allahu calayhi wasalam, siiradii rasuulka ayaan ku jirnay sala allahu calayhi wasalam. waxaa noogu soo dambeysay nebiga asagoo daa'if aaday, intaa ka bacdina ujeeddadii iyo waxyaabihii uu doonahayay uusan markaa soo helin, balse waa imtixaan. mar allaala markuu ka soo laabtayse malagii buuraha loo soo diray, ilaahayna subxaanahu watacaala inuu u gargaarayo ayaa loo tilmaamay, balse aad buu u naxariis badnaa rasuulka. intaa wixii ka dambaysana wuxuu sameeyey inuu iska cafiyey dadkii dhibaatada markaa gaarsiiyey. xaalku markuu meeshaa marayay ayaa waxaa dhacday in rasuulka sala allahu calayhi wasalam mar labaad uu maka dib ugu soo noqday. dib ayuu maka ugu soo noqday. wadc binu cadiy ninka la yidhaahdana waa tuu ijaareeyey. ka hor waxaa dhacday inay dhinteen khadiijo oo nebiga xaaskiisa ahayd, wasiirna u ahayd oo garabkiisa taagnayd, iyo adeerkii abi aalib oo aad looga cabsan jiray, oo in allaala intuu abi aalib noolaa aysan suuro gelin inay dhibaato xoog badan gaarsiiyaan. intaa markay dhacday oo maka laga diiday, ilaa in yaroo rumaysay maahane, intii rumaysay ay kala ordeen oo xabashay madiinay kala aadeen, daa'if uu aaday oo cid raacda la waayey, wuxuu guda galay haddana qabiilooyin yar yaroo magaalooyinkaa iyo tuulooyinkaa degan inuu naftiisa u bandhigo. qolo kasta uu dul tago ee uu uga sheekay islaamkana way diidi jireen. qolada ugu fiican waxay dhaheen, haddaan ku oggolaano oon ku soo dhowaysano, carab baan qoorteenii u dhiganay oo waynala dagaalamayaan. haddaad guulaysato amarka wax ma naga siinaysaa, wax ma naga qaybgelinaysaa, maxaad noo ogoshahay? macnaha oo gorgortan waa meesha haddii lagu doorto oo aan kuu ololeeyo maxaad dhigaysaa iminka socotaa. markaasaa waxay dhaheen, haddaan ku oggolaano oon ku soo dhowaysano, qoorteena carab bay hoos taalaa, waan dagaalamaynaa. haddii aad guulaysato maxaad noo ogoshahay, amarka mana laga qaybgelinaysaa? amarka ilaahay baa iskala buu dhahay sala allahu calayhi wasalam. meel allaala meeshuu doono ayuuna dejiyaa. amar doon iyo madax doon iyo xukun doon ma aha. meeshaan janna la raadinayaa. dadka uu u bandhigayo waa dad janno inay galaan uu rabo. way noo imaan doontaa wiilashii reer madiine mar allaala markii ay la ballameen oo ay dhaheen, rasuulkii allow haddaan intaa samayna famaa lanaa, qaala aljanna, jannaad leedihiin. baraa ibnu macruur intuu istaaguu yidhi, gacan qaada nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam, jannada waa waxaan rabnaye. intaa markii dhacday oo dhibaatadaas saa ay usii maraysa rasuulka sala allahu calayhi wasalam, waxaa la tusiyey ama la siiyey bishaaro aad iyo aad u weyn. bishaaradaas waxay ahayd in haddii nebigii qiimaha badnaayo dhulkan lagugu diiday, oy dadku ku aamini la-yihiin oo ay ku rumayn la-yihiin, waxaa jirta mala' iyo meel sare oo lagaa jecel yahay.
meel lagaa soo dhowaynayo oo aada lagaaga jecel yahay ayaa jirta, waa mala'da sare. taa waxay keentay marka al-israa waalmicraaj in rasuulka lagu sameeyo sala allahu calayhi wasalam, in asagoo dhanba inta la qaado cirka iyo samaawaadka la geliyo, dadka meesha jooga iyo makhluuqa meesha ku nool say u soo dhowaynayaan iyo say u jecel yihiin iyo sida loo marxabaysiinayo, in sida loo soo dhowaynayo dadka markaa la tusiyo. xaaladaasuu ilaahay doonay subxaanahu wa tacaala. rasuulka markaa kadib waxaa lagu sameeyey al-israa waalmicraaj. mucjizooyinka rasuulka la siiyey ka mid tahay, qaar waa abadiya, qaarna waa mu'aqat. waxyaabaha abadiyada ah ee nebiga mucjizo ahaan loo siiyey kitaabka qur-aanka ka mid ah, waa mucjizo jiraysa ilaa maalinta qiyaamaha. waxyaabaha nebiga sala allahu calayhi wasalam mucjizooyin ahaan loo siiyey oo mu'aqadkee meel ku eg waxaa ka mid ah israahi micraajka. waxaa ka mid ah biyo wax yar ah oo intuu gacanta geliyey biyihii bateen, farihiisa biyo kasoo burqanayay sida il biyo kasoo baxayoo kale, waa mucjizooyin mu'aqad ah. waxaa ka mid ahaa dayaxoo loo kala jeexay, iqtarabat isaaca wanshaqa alqamar, saacaddii qiyaam way soo dhowaatay, dayaxiina wuu kala go-ay, bishiiya ilaahay u kala jebiyey subxaana wa tacaala. waxyaabo fara badan oo mucjizooyin noocaasaa jiray. xeero raashin ku jira oo la cunaayo, wixii laga bixin haddana soo gelayo, mucjizooyin bay ka mid ahaayeen. sidaa darteed mucjizadan israha iyo micraajka waxay ka mid tahay mucjizooyinka in la rumeeyo ay markaa waajib ka tahay, ilaahayna amray subxaana wa tacaala, nebigana lagu sameeyey. rabbi wuxuu tilmaamay subxaana wa tacaala asoo arrintaa tilmaamaya, subxaana aladii asraa bicabdihi laylan min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsaa aladii baaraknaa xawlahu linuriyahu min aayaatina inahu huwa asamiicu albasiir. subxaana aladii, macbuudkii baa nasahnaaday, ilaahii ayaan ceeb iyo nusqaan lahayn, asraa ka dheelmiyey, asraa bicabdihi, subxaana aladii asraa, waxaa nasahnaaday ilaahii dheelmiyey, bicabdihi, bicabdihi marka la leeyahay waa la sharfayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam. waxaa loo qirayaa cubuudiya, inuu addoon ilaahay yahay subxaana wa tacaala. subxaana aladii asraa bicabdihi layla tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi wain kuntum fii raybin mima nazalnaa calaa cabdina alxamdu lilaahi aladii anzala calaa cabdihi alkitaab. intaasoo dhan waxaa lagu tilmaamayaa oo nebiga lagu qirayaa addoonnimo. tashriif bayna markaa u tahay. qofkuu ilaahay cabdii yidhaahdo waa qof aad iyo darajo sar markaa gaaray, wa cibaad araxmaan. waxaasoo dhan waxay tilmaamayaan in ilaahay qofkuu isku nisbeeyey qaas ahaan, addoonnimo qaasiya uu u tilmaamo, sharaf iyo qiimo inay u tahay. idan subxaana aladii asraa bicabdihi laylan, habeennimo, min almasjid alxaraam buu ka dheelmiyey ila almasjid alaqsaa baa loo dheelmiyey. masjid alaqsaa waa masjidkii fogaa, bayt almaqdis, alladii baaraknaa xawlahu, oo gaararkiisii aan barakaynay. maxaa loo dheelmiyey oo loo qaaday nebiga? linuriyahu min aayaatina, inaan aayaadkeena wax ka soo tusino. dhulkaa lagugu nacay, cirkaa lagaa jecel yahay, mala'da saraa lagaa soo dhowaynayaa, kuwan way ku cayriyeen, dhagxaan bay kugu soo tuureen reer daa'if, laakiin meel lagaa jecel yahay iyo mala' saraa jirta. linuriyahu min aayaatina inahu huwa asamiicu albasiir. ilaahay waa alla samiicoo maqal badan, haddana basiir ahoo aragti badan subxaana wa tacaala. bacdamuu sidaa yahay, mucjizada israha iyo micraajka waa mucjizo nebiga la siiyey sala allahu calayhi wasalam. haddaba israha micraajka nebiga waa la isreeyey, micraajna waa lagu sameeyey. waktiga ay dhacday israha iyo micraajka ma lahaayo xaqiiq, taariikh xaqiiq ah oo hadda la tilmaami karo oo la dhihi kara bishu intaasay ahayd, waktigana intaasuu ahaa, intaasayna ku beegnayd. ilaa iyo hadda wax sugan oo si caddaana loo tilmaami karo oo la dhihi kara xilligaa ayuu dhacay ma jiro. israha iyo micraajka waa wax uun ilaahay ku karaameeyey rasuulkiisa. waxaa la yidhaahdaa markii lasoo diray
5 sano kadib qolaasaa qabtaa. habeenka 27 bisha rajab sanada 10aad qolaa qabtaa. waa sida loo badan yahay. waa sida marka rajabka marka la gaaro 27kiisu dadku ay xusaan Israa iyo Micraajka. hijrada ka hor 6 bilood, hijrada ka hor ب16 shahra 16 bilood ramadaanna ay tahay. qolaa tiri say noqota haddaan ka baxna khilaafaadkaas, bal aan tilmaanno in Isra iyo Micraaj jiro. aqwaasha tilmaamaysa 25 iyo arrimaha taqaanaa 27 rajab iyo waxaad fahmi kartaa Khadiijo iyo Abi Taalib dhimashadooda kadib ayuu ahaa Israa Micraajka. Khadiijana waxay dhimatay saan soo tilmaanay Ramadaan sanadii 10aad ee nebinimada. waayo Khadiija markii dhimanaysay salaad maba la waajib yeelinba. salaadaha waxaa waajib la yeelay oo aan khilaaf ku jirin habeenka Israha iyo Micraajka. saa darteed habeenka Israha iyo Micraajka nebiga loo qaadayay ayaa 5 salaadood lagu soo waajib yeelay inay ummadiisu markaa tukadaan. nebiga sallallahu alayhi wasallam Israa iyo Micraajkaasi wuxuu u ahaa in ilaahay nasri siinayo subxaanahu wa tacaala. haddiiba dadkan daciifka ahee dhulka joogay ku diidan yihiin, mala'dii xoogga badnaydna kor ay jiraanee lagaa jecel yahay, idan diintu way soconaysaa. meeshii alla ugu talagalayna gaaraysaa subxaana wa tacaala. meel allaala meeshii ilaahay ugu talagalay markaa way tegaysaa. rasuulka sala allahu calayhi wasalam mar allaala markii Israha iyo Micraajka lagu samaynayay wuxuu tilmaamay ilaahay subxaana wa tacaala inuu ugu talagalay khayr iyo wanaag iyo bishaaro cadiima inay markaa u tahay. mucjizadaa weyn oo xilligaa ay dhacday ilaahay garanaya subxaana wa tacaala. intaa qowlna markaa ku jirta waxay ku bilaabatay habeennimo ayaa Jibriil u yimid rasuulka sala allahu calayhi wasalam asagoo maka jooga, waana hurdaayey. wuxuu soo furay saqafka guriga, lamayeerigii guriga ayuu soo furay. ma soo dumin oo kuma soo dhicin nebiga. carrana ma soo daadanin, dhagaxna ma soo dhicin. waa hab ilaahay ugu talagalay subxaana wa tacaala. habkaa rabbi ugu talagalay intuu saqafkii beydka soo furay Jibriil ayuu ka soo galay. wuxuu u yimid rasuulka sala allahu calayhi wasalam. dad baa la jiifay oo ilaahay garanaya subxaana wa tacaala. ibn Abi Taalib qolaa tilmaantay, Cabbaas qolaa tilmaantay. gurigaa waxaa la tilmaamaa gurigii eedadii Ummu Haani binti Abi Taalib inay ahayd. xaaladahaasoo dhan waa suuragal, laakiin rasuulka sala allahu calayhi wasalam mar allaala markii uu saa ugu yimid waxaa la sameeyey baa la yidhi camaliyad. ileen marka labaad ee la tilmaamay nebiga in la jeexay ayay ku tilmaamaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam xilligii Israha iyo Micraajka. xillina waata asagoo yar oo ilmaha la ciyaaraayo la legday. alam nashrax laka sadrak wadacnaa canka wisrak ayaan kusoo marnay. waxaa laga jeexay meesha ilaa iyo meesha maqaarka khafiifka hoostiisa ku yaalay xundhurta hoosteeda ah ayaa nebiga laga qalay. wuxuu ka soo saaray calaq xinjir. markaasuu yidhi waa intuu shaydaanka kugu lahaa ee nasiib ah, waa laga tuuray. wuxuu keenay baa la yidhi baaf ay ka buuxdo xikmad iyo iimaan, waa lagu shubay sala allahu calayhi wasalam. waa ta la tilmaamo qof walba waxaa la socda qariin buu leeyahay. adigana rasuulka ilaahayow aniga waan leeyahay, laakiin khayr muuye wax kale ima fara buu yidhi. khayr maahane wax kale ima amro. saad u socoto khayrkaad ugu socotaa marka gobolka mid lagaa soo leexinayaa oo waxaa lagu tusayaa oo qariinkaagii ku amrayaa xumaan iyo waxyaabo kale. say noqotaba rasuulka waxaa loo keenay sala allahu calayhi wasalam habeenkaa daabad magaceeda la yidhahdo buraaqa la yidhahdaa magaceeda. rasuulku wuxuu ku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam fawqa alximaar wa duuna albaqal. baqashana way ka yareed, dameerkana way ka weyneed. magaceeda buraaqa la yidhaahdaa. amaa sawirada maanta dadku ay isticmaalaan ay buraaqada la yidhaahdo, wajuhaa ka waji ibni aadam, inta dambe faras bay ka tahay. waxaad arkaysaa guryaha waxaa ku dhegan buraaqa nebi baa dusha uga qoran, buraaqadii nebiga lagu qaaday. waa gabar
macnaha edab darrada meesha laga sameeyey horta waxaad ka fahmi kartaa wejigeedii waxaa laga dhigay qof dumar oo kale, maca daalika haddana dhego ugu jirta qurux leh. intaan dambe waxay ka tahay daabad faras oo kale, wax ka jiraa ma jirto. waa edab darro iyo dulmi iyo buhtaan iyo been abuurad. dadka ay guryaha ku dhegdhegsadeenoo buraaqamaha iska fujiya. waa waxyaabo loogu talagalay dadka in looga ganacsiiyo. teeda kale xushmad darada iyo akhlaaq xumida waxaad ka fahmaysaa nebiga daabadii uu raaca in dumar laga dhigo wejigeeda. waa shay aad iyo aad u xun. rasuulku xadiisku wuxuu ku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam in magaceedana buraaqa la yidhaahdo, fawqa alximaar, dameerkana ay ka yara weyneyd, duuna albaqal, baqashana ay markaa ka yareed. magaceedana waxaa la yidhaahdaa buraaqa. buraaqada waxay ahayd mid abyad ah oo cad, aad bay u dheeraynaysay socodkeeda. qaara waxay tilmaamaan lugteedu waxay gaaraysaa meesha isheedu ay markaa gaarayso. rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii intaa lagu sameeyey oo buraaqadaa loo keenay, say u sii waday ay u waday waxay geysay bayt almaqdis. subxaana aladii asraa bicabdihi layla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsaa aladii baaraknaa xawlahu. oo gaararkeeda aan barakaynay buu yidhi ilah subxaana wa tacaala. meeshaaba markaa la geeyey. mar allaala markii meesha ay tagtay waa bayt almaqdis, wuxuu ku xiray buraaqadii xalaqad ambiyada ay ku xiran jireen ayaa la yidhi. intaa ka bacdi rasuulku wuxuu galay almasjid alaqsaa 2 ragcadood ayuuna ku tukaday. salaadihii lama waajib yeelin, saan soo tilmaano hadda la waajib yeeli doonaa. 2daa rakaca way jirto miladii ibraahim bay ahayd qolaa tiri. intaan salaadaha la waajib yeelin 2 rakacadood oo subaxii galabtii la tukaday ayaa markaa jiri jirtay, 2 rakacadood. ilaa caaisha ay leedahay mar allaala markii salaadii waajibka la waajib yeelayna waa la taam yeelay salaadii xadarka. tii safarkana sideedii baa loo daayey oo 2 rakacadeedii baa laga dhigay. marka taa waxay tilmaamaysaa 2 rakacadood ayuu meesha ku tukaday. waxaa kaloo sugan oo la yidhi in nebiyadii inta loo soo ururiyey meesha uu ku dujiyey rasuulka, imaamna uu u noqday. taasi waxay tilmaamaysaa tashriif. waa la nacay oo ummad baa nacday, laakiin sida loo jecel yahay fiiriya, sida ilaahay uu u qiimeynahayo nebigiisa sala allahu calayhi wasalam, khayrka iyo wanaagga ilaahay ugu talagalay inuu nebiyadii oo dhan imaam u noqdo. maalinta qiyaamahana dhammaan waxaa lagu soo jamcinayaa buu yidhi taxta qadami. ummadda oo dhan aniga sayidkoodii ah, anaa sayidu waladu ibnu aadam walaa fakhr, mana ku faantamay buu dhahay nebiga. laakiin aadam ilmihiisii oo dhan sayidkoodii baan ahay. rasuulka sala allahu calayhi wasalam tashriif ahaan baa sidaa loo yeelay. markii uu ka soo baxay ayaa malakul jibriil wuxuu u keenay weel khamr ay ku jirto. waxaa la tilmaamaa khamrada in jannada looga keeno on lagu sarqaamaynin. waxaa la tilmaamaa khamr un inay ahayd, ilaahay baa garanaya xaqiiqda subxaana wa tacaala. iyo weel uu biyo ee uu ku jiro laban ama caano ayaa loo soo dhigay. rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa uu doortay caanihii. riwaayadaha qaar baa laga yaabaa inay ku daraan iyo weel 3aad oo markaa biyo uu ku jiro ayaa loo keenay. ikhtibaar baa socdaa, alimtixaamayaa. fakhtaara annabiyu allaban, rasuulka caani buu doortay. jibriilaa yidhi ilaahay baa mahad iskale subxaana wa tacaala ku dooransiiyey fitradii iyo diinta islaamka. waxaad ku dhegtay oo aad qabsatay waa diinta islaamka. diintii islaamkaad qabsatay baa la yidhi. haddaad khamrada qaadan lahayd ummaddu way baadiyoobi lahaayeen dhammaantood. sidoo kale haddaan biyaha ictibaarino laftigeeda, haddii aad qaadan lahayd ummaddu biyaa qarqin lahaa. laakiin caanihii baad qaadatay, caanihii ayaad dooratay. idan waxaad dooratay fitradii. caanuhu aad bay u fiican yihiin. caanuhu mar allaala marka axadka asagoo cabay uu ku riyoodo, insha allah diin inuu baran doona loo rajaynayaa. dhowr jeer buu ku riyooday rasuulka asagoo caana cabaaya. habeen waxaan ku riyooday bir anigoo caana cabaaya.
caanii markaan ka dhargay xab dharagtii oo kasoo baxayso cidiyaalkayga kasoo qubanayso, wixii iga soo haray waxaan siiyey cumar ibn alkhadaab radia allahu canhu. maxaad ku fasirtay? cilmigaan ku fasiray. marna qamiis baan ku riyooday buu yidhi, ummadii oo qamiisyo wataan, laakiin qamiisyaha meel dheer uusan u joogin. qaar bay naasuhu u joogeen, qaar buu xabadka u joogay, qaar bay tarquuntii dhuunta u joogtay. cumar ibn alkhadaab baa isoo maray wa calayhi qumus ama khamiis wata yajuru, dhulka uu ku jiidayo aada u weyn. maxaad ku fasirtay? diinkan ku fasiray. cani maxaad ku fasirtay? cilmigii baan ku fasiray. say noqotaba cumar ibn alkhadaab fadliga iyo wanaagga uu leeyahayna waa la tilmaamaa. marka rasuulka sala allahu calayhi wasalam habeenkaa wuxuu ikhtaartay, uu doortay inuu caanihii qaato. caanaha uu qaatay waxay daliil u noqotay ama sabab ay u noqotay waxay tahay in diinta islaamka uu qabsaday, uu haysanayo. diinta islaamkuna ummaddu ay qaadan doonaan mar allaala markii beenin fara badan iyo tagdiib ay dhacdo. ilan waa la is-imtixaamayaa, imtixaan fara badan baa imaanaya. imtixaanka noocaasa sabir baa looga baxayaa. marka ugu dambaysa laakiin guusha iyo ciribta dambe inuu asagu markaa yeelanayo rasuulka sala allahu calayhi wasalam. diinta islaamkuna ay gaarayso meel kastuu ilaahay ugu talagalay subxaana wa tacaala. diintan way gaaraysaa guri wabar ah, guri mataqaanaa ka samaysan dhogor iyo mid dhooba ka samaysanba, dilla daliil oo cizi casiis bay ku gaaraysaa. nin casiis ah casiisnimadiisa, ama mid daliil ah dullinimadiisay ku gaaraysaa. gaal ilaahay hogaamiyey oo dhexdiisa laga dhex kacay oo islaamkii ku faafay ha noqdo, ama nin ilaahay ugu talagalo casiis ahoo diinta cisaynaya, labadaa mid uun bay ku gaari. laakiin diintan way soconaysaa meeshuu alla ugu talagalay ayna markaa tegaysaa. rasuulka sala allahu calayhi wasalam intaa ka bacdi markii ikhtibaarkaa lagu sameeyey uuna gudbay iyuu ku baasay, waxaa intaa ku eg waa israhii. isra waxaa la yidhaahdaa nebiga oo laga qaaday min almasjid alxaraam la geeyey ila almasjid alaqsaa, jus habeenka ka mid ah. riya ma aha, laakiin asagoo dhan baa la qaaday. bicabdihi waxay tusaysaa nebiga dhammaantii in la qaado meesha laga qaaday, in asaga la dheelmiyey jasad iyo ruux wada socdaa. wamaa jacalna riyadii aan ku tusinay kama aanan yeelin ilaa fitna markuu ilaah tilmaamayo. qaara waxay leeyihiin riyay ahayd, nebigu ma bixin laakiin wuu riyooday. laakiin aayaddu waxay tilmaamaysaa subxaana aladii asraa bicabdihi. ilan riya cabdihi lama aha, addoonkiisii oo dhan inuu ilaahay qaaday subxaana wa tacaala. in gobol habeenka ka mid ah weliba bicabdihi leylan marka la leeyahay waa la taqliilinayaa, waa yaraan, waa jus habeenka ka mid ah unbaa la qaaday, la geeyey meel bil loo soconayo, bilna laga soo soconayo. habeen gobolkiisii iskaba sii daaya samaawaad ka sarsare ayaa markaa lasii saaray ilaa meeshiisii lagu soo celiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam. taana waxay tilmaamaysaa israha iyo micraajka wax xaqiiq ah oo sugan inuu markaa yahay. cajaa'ib fara badan buu habeenkaa la soo kulmay rasuulka sala allahu calayhi wasalam. intaa markay u dhammaatay oo ay tilmaameen in taqaanaa ay tilmaameen la tilmaamay in israhii intaa ku dhammaaday, rasuulka sala allahu calayhi wasalam kabacdi waa la korsiiyo, kor baa loo sii qaaday. hadallo fara badan baa laga yaabaa, ilaahay garanaya xaqiiqdeeda sida ay yihiin, suuragalna ay tahay inay dhammaan waxba ka jirin. in la tilmaamo intuu jidka sii marahayay wuxuu arkay mataqaanaa ibliis shaytaan oo u qayliyey. wuxuu arkay mataqaanaa imra'a cajuuso ah ama ibliiska oo suurad wata oo cajuuso ah. wuxuu arkay mataqaanaa wax u qaylinaya. arrimooyinkaasoo dhan waxaa suuragal ah wax xaqiiqo ah oo sugan inaysan markaa ahayn, laakiin ilaahay subxaana wa tacaala ama axaadiista inay tilmaameen arrimooyinkan ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisu ku tilmaamay iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam. intaa ka bacdi sacida bihi jibriil baa kor la aaday ilaa uu tegay samadii dhoweyd, ila asamaa'i aluulaa ama samaa dunyaa. samadii dhoweyd ayuu tegay. samaa dunyaa waxaa loogu bixiyey way noo soo dhowdahay. allaala marka kor madaxa loo qaado waa waxa ugu horeeyey ciyaan ahaan markaa loo arko way iyadu markaa ugu soo horayso. marka jibriil calayhi salaam ayaa la tegay oo kor la sii aaday ilaa ay tageen samadii dhoweyd. samada ciyaar ma aha. marka la tago layskama galo. marka la tago
waxaa ka horaysa imtixaan fara badan. mar allaala markii samadii koowaad ay tageen ama samaa-u dunyaa fastaftaxa lahu jibriil baa iftitaax weydiiyey, albaabkuu garaacay. iftitaax, yaa ayuha aladiina aamanuu, iska daa samadee, gurigaaga albaabkaaga yaa laleeya celiyeysa soo gelin oo mataqaanaa guryaha aan deganeyn ama aan lahayn. laa tadkuluu buyuutan gayra buyuutikum xataa tasta'nisuu wa tusallimuu calaa ahliha, ilaa ad isti'daan qaadataan oo ehelkeeda aad salaantaan maahane. waa midda idin khayr badan. ka waran samada, wajacalna asamaa'a saqfan maxfuudan, sama la ilaaliyay aan ka dhignay buu dhaha ilah subxaana watacaala. wahum can aayaatiha mucriduun, aayaadkeediisa kasii jeesanayaan. ma ogola inta badan aayaadkii ayay kasii jeesanayaan. marka samadii koowaad ayay tageen jibriil iyo nebiga sala allahu calayhi wasalam. istiftaax ayuu weydiiyey. waxaa loo yiri man waayo wax albaabka garaacaya, samada albaabkeeda cidda garaacaysa yay tahay. qaala jibriil baan ahay, malakul jibriil. meesha waxaa laga fahmayaa baa la yiri, qofka mar allaala marka albaab islaameed uu garaaco ama albaab uu garaaco oo la yidhaahda man, inuu yidhahdo fulaan waa hebel ayaan ahay. waa in nafsadaada aad ku magacaawdaa magacaa lagugu yaqaano, ama kunyo iyo naaneys ay dadka kugu garanayaan. hebel ayaan ahay waa mamnuuc. ana iyo aniga iyo may albaab haddaad garaacdo man lagu dhaho weligaa aniga ha dhihin. yaa waayo aniga, waa qalad. yaa waayo waa hebel. way bannaan tahay waa anigoo hebel ah inaad isku darto. rasuulku umuhaani muxuu ku yidhi man anti, yaa waayo waxa, qaalad ana umuhaani, ani umuhaani baan ahay. rasuulka sala allahu calayhi wasalam maalin baa nin usoo isti'daan qaatay. man ana buu dhahay nabiga sal alla alay slam. ana macnaa ana maxay tahay? aniga maxay tahay? adiyaa tahay. istacriifi, issheeg, ismagacaw. marka xaaladda waa mamnuuc qofka inuu albaab markuu garaacayo haddii la weydiiyo magaciisa waa inuu nafsadiisa ku magacaaba isimkiisa, ama kunyo inaaneys lagu garan karo oo lagu yaqaano. taasay diintu islaamku qabtaa. waa shay aadaabta kamida isti'daanka. waad u jeedaa jibriil calayhi salaam samaduu garaacaya. waa malaa'igta boqorkoodii, waa malaa'igta madaxoodii, waa ruuxulqudus. waa garaaca albaabka. markaasaa leeyahay man, ma dhihin ana. wuxuu yidhi jibriil baan ahay. jibriil ayaan ahay buu yidhi. markaasaa loo yidhi yaa kula socda, aw macaka axad, qof kula socda ma jiraa? qaala nacam macii muxamed baa ila socda. ma la soo diray? waxaad ka fahmaysaa in la sugaayey. inta su-aal ee jibriil la marsiiyey fiiri calayhi salaam. yaa tahay adi? jibriil baan ahay. yaa kula socda? maxamed baa ila socda. ma la soo diray? haa. markaasaa albaabkii samadaa laga furay. saa darteed waxay tilmaamaysaa samadu wax sahlan inaysan ahayn. ilaahay wuxuu ka dhigay sanqaaf maxfuud ah, la ilaaliyey. sanqaaf buu ilaahay ka dhigay subxaana wa tacaala. watuuri wa kitaabi lmastuur fii raqin manshuur waalbeyt almacmuur wasaqfi almarfuuc. waa saqfi iyo sanqaaf kor loo qaaday marka hore, haddana maxfuud ahoo la ilaaliyey. sida ilahay tilmaamay subxana wa tacaala, wالصaafaati صafan faالzaajiraati zajran faالtaaliyaati dikran ina ilaahakum lawaaxid rabu الsamaawaati wاlardi wamaa baynahumaa warabu اlmashaariq inaa zayana الsamaaء addunyaa biziinatin اlkawaakib waxifdan min kuli shayطaanin maarid. waxifdan waa laga ilaaliyey shayطaan kasta oo maarid ah, muruxsan, naxariis aan laga fogeeyey, ilaahay nacay subxaana wa tacaala. وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. ملأ ذا سر هدو تغو شيطان وحو كسو مقلا يا مجرو. ويقذفون من كل جانب ولا صوت ريين أبو الله إلهي جانب كستا لغا صوت ريين. ويقذفون من كل جانب دحورا وعريد يبورين لصوت بورين يدرتين. ولهم عذاب واصب. عذاب واصب أهو دليلنا وحنون بدن أو قبين وليه إلا man khatifa alkhatfa. kubaa jira laakiin hadal soo dafi karaa. intuu hadal soo dafu intay shihaabka iyo dhuxusha ku dhicin yuu ka gaarsiinayaa mataqaanaa kaahinka dhegtiisa.
taasuu markaa ku tuuraa. saa darteed samada xaggeeda wax sahlan maba ahanba, wax ciyaar ciyaar loo tegi karaa ma aha, wax loo dhowaan karaa ma aha. haddii malakul jibriil intaanu su-aala la marsiinayo keyrkii waa min baabi awla, way kasii daran tahay. yaa waaye jibriilaan ahay, yaa kula jira, moxamed baa ila jira, ma la soo diray, waa la sugaayiye, haa, ma la soo fasaxay, haa, waa layga furay buu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam. meeshaa waxaan ku arkay buu yihi aadam abalbashar, basharka aabahood nabi aadam calayhi salaam. riwaayad kale waxay tilmaamaysaa waxaan ku arkay rajul, nin aada u dheer. ninkaasi wuu fadhiyaa, dhinaciisa midigtana waxaa fadhiya asnimo, macnaha makhluuq fara badan iyo nafo fara badan. dhinaciisa bidixdana kuwa saas u fara badan baa fadhiya. mar allaala marka uu eega dhinaciisa midigtana daxik, waa qoslayaa. mar allaala marka uu firiyo dhinaciisa bidixdana baka, waa oynayaa. nin baan arkay buu yidhi fadhiya, waa samaa dunyaa, samadii koowaad buu marayaa nabiga sala allahu calayhi wasalam. samada iyo samada kale inta u dhaxaysa 500 oo sanaa loo socdaa, sida xadiistu ay tiri. dunyaa ilaa dhulka waxaa loo socdaa 500 caam, 500 oo sano. meeqaa lagu tegay? laxadaad. malaa'igtu way soo degaan, wayna koraan. ilaahay baa u tasqiiriyey sidii aan soo marnayba, waannaasicaati garqan waannaashitaati nashta wasaabixaati sabxan. way dabaalanayaan. intaasoo jeer baa laga yaabaa inay kasoo degaanay koraan, amar ilaah ayagoo fulinaya subxaana wa tacaala. saa darteed xaqiiqda marka la fiiriyo, laakiin labada samo, samaa-u dunyaa iyo dhulka inta u dhaxaysa 500 oo sanaa loo socona, waa xilli aan cumrigeena gaaraynin. labada samo inta u dhaxaysa saasoo kale. maca daalika rasuulka sala allahu calayhi wasalam markaan samadii koowaad galay buu yidhi waxaan ku arkay aadam abalbashar, amase waxaan ku arkay rajul aad u tawiil ah. ninkaasi wuu fadhiyey, dhinaca midigta ahna waxaa ka fadhiya makhluuq fara badan, bidixdana saasoo kalea ka fadhiya. mar allaala markuu dhinaca midigta eegana daxika, waa qoslaya. markuu eega dhinaca bidixdana bakaa, wuu oynayaa odaygii. waan la yaabay buu yidhi, waan la tacajubay. jibriil ayaa waxaan ku idhi man haadaa, waa kuma ninkan? markaasuu i yidhi abuuka aadam, waa aabaha aadam. u dhowow fasallim calayh, u dhowow ee salaam, u dhowow ee aadam. muxuu la oynayaa markuu bidixda fiiriyo? muxuuse la qoslayaa markuu midigta fiiriyo? waxaa macquul ah mar allaala marka uu dhinaca midigtaa fiiriyo inuu arkayo dadkiisii iyo duriyadiisii iyo ciyaalkiisii intii jannada loogu talagalay. wuu bishaaraysanayaa marka, wejigiisii waa farxayaa, farxad iyo reynreyn iyo suruura ka qabanaysaa. waayo intaa dhinaca ka fadhisa waa asxaabuulyamiin, waa intii midigta loogu talagalay. waa asxaabuulyamiini, ma asxaabuulyamiin. maxaa ku ogeysiyey midigta asxaabteeda? asxaabuulyamiin maxay yihiin? fii sidrin makhduud wa talxin manduud wa dhillin mamduud wa maa'in maskuub wa faakihatin kahiira laa makhtuucatin walaa mamnuuca wa furushin marfuuca inaa ansha'naahunna inshaa'a fajacalnaahunna abkaaran curban atraaban liasxaabi اlyamiin. midigtay ka fadhiyaan. waa inta ilaahay ahlujanno ugu talagalay subxaana wa tacaala. waa inta faraciisa ah ee ka liibaantay, ee amarka alla qaadatay, ee diinta ku camal fashay, ee shirkigii xumaanta ka tagtay, oo wuxuu ilaahay u diray tawxiida sameeyey, nebiyadii soo dhoweeyey oo aaminay. mar allaala markuu saasu eego daxika, waa qoslayaa. wa asxaabuulyamiini, ma asxaabuulyamiin fii sidrin makhduud. geed gobeed bay leeyihiin, geedka gobka qodax buu leeyahay. fii sidrin markay soo degtay, nin herbaadiya yidhi yaa rasuul allah, sooto la tilmaamay jirada laysku dhibi maayo? haa. xataa la saxaroon maayo, suuli la aadi maayo, lasoo kaadin maayo, xaakan ma jirto, waxyaabo wax allaala wixii qof mashquulin lahaa maba jirtaba. waa suuragal adoo hurdaaya adduunkaoo meel fiican ay kuu marayso hurdada inay kaadi kasoo qabato, hurdadii aada hurdaysood kasoo kacdo. maxaa kaa baabi'iyey? ma jirto aakhiro. miyaanan la oran dadku ma dhibtoonayaan? haa. waa maxay gobka la sheegay buu yidhi? gobka qodxuu leeyahay,
qodxaan buu leeyahay miyaysun dadku duraynin fii sidrin makhduud buu yidhi ilaahay qodxa ma laha waa gob la qodxa jaray maaha gobkaan u jeednoo kale xabad yar baan arkaynaa markaad afka gasho tixri baa kaaga soo baxay ku qaarkii koo waa qaraar koo laftiisa si kale ah koo asagoo dhan afka ma gelin kartid ma aha nooca geed gobeed bay leeyihiin makhduud la qodxa jaray sida ilaah tilmaamay subxaana wa tacaala fii sidrin maqduud wa talxin mawduud talxiga waa geedka caleemaha waaweyn sida muuska oo kale moos ayay leeyihiin tuban oo la raseeyey waxay leeyihiin sida ilaah tilmaamay subxaana wa tacaala dilli iyo hoos mamduud ahee taagan waa dadka dhinaciisa fadhiya waa dadka ka qosli siiyey bishaarada waxa loo tilmaamayo waa in allaale inta asxaabulyamiin noqotaa ulaa'ika asxaabulmaymana waa midigta asxaabtooda dadku ilaah yidhi subxaana wa tacaala bacdamay xaaladdu sidaa tahay oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ugu talagalay wanaagga waxay leeyihin fawaakihaad fara badan laa makhtuuca walaa mamnuuca wa furushin marfuuca furush iyo faraashyaalo la kor yeelay innaa ansha'naahunna inshaa'an dumarkooda gaboobay xataa waan soo yaryaraynaynaa fajacalnaahunna abkaaran gabdha yaryar baa laga dhigaa oo bikrayaalo ah curban atraaban raggooda jecel oo isku da ah yaa iskale liasxaabi alyamiin dadka aadam ka qosli uu u qoslay maxaa ka oysiiyey marka uu bidixda eego aadam calayhi salaam waxaa ka oysiinaya waa inta shaqaawo iyo nasiib xumo ku dhacday oo naarta loo kaxaynaya waciyaadu billah waa in allaala inta la wadaayey inta la kaxeeyo loogu talagalay inay meeshaa aado waa meesha ugu daran waa meesha ugu cadaabka ah waa meesha laysku cadaab gelinayo sidaa darteed ayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi odaygaa markuu eega dhinaca midigtana wuu qoslayaa markuu bidixda fiirina wuu oynayaa jibriil baan idhi waaxay wuxuu igu yidhi waa aabuuka ama adoogaa aadam orod u tag ee salaam waan u tagay waan salaamay salaamtana waa iga qaaday wuxuuna yidhi marxaban biibni saalixi waalnabiyi saalix soo dhowow baa kuu sugnaaday iyo soo dhowaasho nebigaa saalix ee wanaagsanow iyo inankan saalixa ah nebi aadam calayhi salaam iyo ibraahim saan arki doonno yaa waxay ku salaami doonaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam biibni saalix waalnabiyi saalix amaa nebiyada kale waxay odhan doonaan biakhi saalix ilan facjin bay noqonayaan amaa aadam waa wuxuu u noqonayaa nebiga waalid buu markaa u ahaanayaa aakhira marka la tago saan soo marnayba soo saar baa la odhanayaa bicdada naarta loogu talagalay aadam in allaala inta naarta loogu talagalo loogu qoondiyay kasoo saar duriyadaada dadkii oo meesha taagan ilmihiisii kasoo bixi meeqaan kasoo bixiyaa 999 kasoo bixi kuwaasaana ahlu naar ah halka soo haraya ayaa ahlu janno ah wadalika yowm yajcalu lwildaana shiiba ويوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود بيري نبي صلى الله عليه وسلم ومالنتا عيالك عروريال نقونيان ومالنتا عيالك يريراء دلك هاي حد لا دلي عروريال نقونيان إذن ما سهلنا كنكي قفض سقال بقول إسقاشن هدي نار تلقلي محا صهري وح صهري مجر وفسق قبطي ومعاصي بضطي ودينك فوقاشها واحترام الأنتا ودينتي أولا نعي والشيطان أولا جعلاضي وحقي أمدو كفقادين ودينتي إلهي أي كسي ترقيان هبين إيمالين وأدواشها بعدك يعرض ألا اللو دوانايو سادر تدبر لأوران دونا صوب بحي بعثد الله قلت لك علي ذرية انت عذابك اللي قلينايو سقال بقول سقال حلقة صوهرة أيا لبد بادنا كاسا مركا جنة آذايا وكقاضي فرد عليه سلامتي أيو كقاضي وكرديي نبي نما أيو نقصغي ووحو يري نبيكي صالحة أها يئنكي صالحة أها يو أرواح ذا نوام حيبا ليري جبريل مركاسو يري أرواح ذا أجدنا وأرواح دي عروفتيسا وحمدك تجوغنا وانتي سعدد اللي بانتي أرواح ذا أشقيض أهنا عن يساره وإنت بدح سفرسا إنت بدح فردسا إذن لوقع بالله كالبحنا كتاب قيامها سيد إلهي تلمامي فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله قالنا الشمال بالله قصي إيقعنت بدح ذا
qolana gacanta midigtaa laga siiyaa buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala midigtaa laga siiyey waxay daliil iyo calaamo u tahay inay jannada aadayaan inay ahlu janno markaa yihiin saa darteed buu ilaah yidhi fayaquulu haa umuqra'uu kitaabiyah wuxuu odhanayaa kaalay kitaabkayga ila akhriya innii danantu annii mulaaqin xisaabiyah waan malaynaya xisaabtan inaan la kulmayo fahuwa fii ciishatin raadiya caysho iyo nolol raadiya buu ku jiraa fii jannatin caaliyah jannooyin sarsaraysa buu dhaha ilaah subxaana wa tacaala qutuufuhaa daaniya mirahooda gurashadooduna ay dhow yihiin kulli washrabuu hanii'an cuna oo caba asagoo hani ah oo sifo ah oo bogaadsi ah oo macaan ah cuna waa bima aslaftum fi alayaami alkhaaliya ayaamatay waxaad soo hormarsateene yaa soo haray kuwii uu u ooyey aadam وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول ها يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية عواط يا قيل يا علاعل يا ندام يحياو اسكو دريا هلاقي وعنيا حسرة يا شالاي قوم ماما يا دب وحكستو اسكو دريا لكن وح لقى عتابايا وعتابدي صلى مقلايو مركا معها سادرتد nebi aadam calayhi salaam ayuu samadaa koowaad ku arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam intaa ka bacdi way isi salaameen salaantiina wuu ka qaaday si fiican buu u soo dhoweeyey nebinimadiisana wuu qiray nebi aadam calayhi salaam intaa ka bacdi way kasii anbabaxayaan nebiga iyo jibriil calayhi salaam weli wuxuu ku jiraa malakuudka sare mala'dii salaa lagu dhex dawaafinayaa dad adduun jooga oo bani aadam ahoo dhimanayo wax faa'iido aan lahaynoo way diidanayeenoo qaaraa tuuriyeeyo dhibaato iyo waxyaabo kala baday oo gaarsiiyey laakiin waxaa lagu wareejinoyaa oo saas ugu sii dhex socdaa samaawaadka dhexdooda saasaa lagu sharfayaa nebigii ilaahayow qadarintan iyo mudnaantaasaad leedahay rasuulkii ilaahayow cizada iyo karaamadaasaad leedahay yo fiiri waxba ha u hanqal taagin إلهي بقى كاد دفاع دونا سبحانه وتعالى ملأ الجعل وحي أي كأرك لها ين أي مركا كأركا وأنا أسبوع عدم بهدي إلهي ابن سبحانه وتعالى نبي محمد صلى الله عليه وسلم إي ملك الجبريل وساحيب كي أو وضع الصعبة ونسيجي ذا صمد اللبات وصل غفوري دونا وحيث كأرك دونا ويقدم من أركينا هذه ربي ابن سبحانه وتعالى وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. إلهي سبحانه وتعالى ميزانك حسناتك كوسر الشيخ حسن إبراهيم عيسى عمرك علمك عقلك عربك عربتك عرفتك عدودك عائلتك عافمتك عرضتك أنت بالله سبحانه وتعالى كبركي الله سبحانه وتعالى أنت دقيستها كوافع النبي الله محمد صلوات الله وسلامه عليه الله صاره الله سبحانه وتعالى النبي الله محمد الله صاره آمين يا رب العالمين. إن شاء الله تعالى إن الله سبحانه وتعالى نقول أنفعوا باركم الله فيكم وحن رجينا يا عشرة